wafdu soo gaamiye gudoomiye ku-xigeenka guddiga maamulka doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Nuuridiin Ibraahim aadan yeegay ka jiri magaalada Baydhabo harunta gobolka Baaya way bana garoonka diyaaradaha shaati gaduud international airport ee magaalada Baydhabo wafdu waxa ka dhawaayay wasiiru dowlaha Madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Maxamed Khayr iyo mas'uuliyiin kale way bana dhawaayo kurada guddiga iyo wasiirka qaybta VIP-da garoonka kuwaladana kulan isoo wareysay soona wasiirka magaalada Baydhabo ka dhawaayay wafdugu ku daray guddiga maamulka doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Kiraatmo wali banta ka dhawaayay guddiga doorashada dowlad goboleed oo soo gaamiye gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka koonfur galbeed ama heer maamul goboleed dhammaan guddiga oo dhan saasoo kale amaha nagaana runtii dad oo aad iyo aad loo sugayo marka waliba lana martim ay hiidin magaalada ku haytaan dhawaada gacmo ka dhawaada anas martayteen Nuuridiin Ibraahim aadan gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo ku warbi kooyowsha magaalada Baydhabo harunta gobolka Baay soona ku mahnagay sida fayle lahan ka dhawaay magaalada Baydhabo marka ugu horeyso waxa mahad ballaaran iskala Allah subhanahu wa ta'ala oo safarkeena aan uga imaanay noo fududeeyay magaalada Muqdisho waxaan marka hore u mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Mudane Maxamed Cabdi Lafta Gareen oo ka shaqeeyay guddigii isku xirnaantiisa iyo qaababkiisii sidii shaqooyinkiisa u bilaabi lahaa marka labaad waxaan mahad celinayaa wasiiru dowlaha Madaxtooyada dowladda koonfur galbeed Soomaaliya soo dhaweyntii ballaarneed ay noo sameeyeen sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada kolleytaba guddigii uu yimaaday hadda kadib wuxuu qabsan doonaa shaqooyinkii loo igmaday magaaladan soo wasiirka hore uu sheegay marti kuma nihin insha Allah waana dhownahay hadii Ilaahay idmo insha Allah waa wada shaqeynayna hore hadda kadibna shaqo fiican baa ina dhex mari doonta marka waan dhownahay boqolkiiba idin mahad celinayna marka hore doorashooyinka kolleytaba waxa la soo saarayaa habraacyadii schedule-ka sida ay lagu heshiiyay odayaashu ay ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada iyo xukuumadda federaalka oo horkacay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Roble waxay ku heshiiyeen agreement-iyo ay soo saareen annagana waxaan ku base gareyn doonaa habraaca iyo schedule-ka heshiisyadii la soo gaaray ay ku gaareen magaalada Muqdisho madaxda dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha horkacay mudane Roble Faisal Hussein warbaahinta koonfur galbeed magaalada Baydhabo.